السلام عليكم دعوة kusoo dhawaada maanta insha Allah videogeena waxaan kaga hadli doonaa sidii ay dalka Brazil oo la soo noqotay madaxbannaanideedii xilligii gumeystii. Maalinta maanta ah dalka la yiraahdo Brazil ayaa hoos timid xukunkii gumeystihii Portugiiska bishii markay ahayd April sanadkii 1500 kadib markii ay dadka reer Portugal hoos tageen taliskii Pedro Álvares Cabral. dadkii asaliga ah iyo bulshooyinkii xilligaa u qaybsanaa qabaa'ilo dhowr ah oo mid waliba nidaam hogaamin gaar ah lahaa ayaa hoostaga xukunkii Pedro Álvares. Portugiisku wuxuu bilaabay inuu dego dalka Brazil 1532 laba sano kadib 1534 waxay si firfircoon uga soo horjeedsadeen beelaha deegaankaasi deganaa ay dagaal la galeen. markii ugu horreysay boqor John-kii saddexaad ee dalka Portugal wuxuu Brazil u kala qaybiyey 15 deegaan. laakiin dhibaatooyinka maamulka ayaa boqorkii Portugal ku kalifay inuu magacaabo gudoomiye guud. kadibna Portugiiskii ayaa bilaabay inuu adoontii galbeedka Afrika la keeno beeraha sonkorta ee dalka Brazil. waxay Portugal u ballaariso xukunkeeda beeraha Brazil iyo weliba maamulka koonfur bari ee dalka Brazil. iyaga oo taas ka duulaya ayaa waxay qabsadeen Rio de Janeiro, magaalo ka mid ah dalka Brazil. sanadkii markuu ahaa 1567 iyo magaalada São Luís 1615. waxay qabsadeen xarumihi ay maamulayeen dadkii Dutch-ka ahaa mise dadkii ka soo jeeday Holland dega iyo dadkii reer Ingiriiska. sanadkii 1680 waxay koonfur galbeed kasii ballaadhiyeen Rio de la Plata oo hadda Uruguay la dhaho. kadib markii Faransiisku uu kusoo duulay dalka Portugal sanadkii 1807 qoyskii boqortooyada waxay u carareen dalka Brazil halkaas oo ay ka dhiseen caasimadda Rio de Janeiro. sanadkii 1815 ciidamada Faransiiska waxaa lagu jabiyey oo laga saaray dalka Portugal. boqorkii John-kii lixaad ee Portugal ayaa Brazil ka dhigay xubin siman oo ka mid ah boqortooyada Portugal iyo Algarves. sanadkii 1815 waa isla sanadkaas boqorkii John-kii lixaad ayaa wiilkiisii Prince Pedro ka dhigay gudoomiyaha si uu maamulo booskiisa dalka Brazil. Amir Pedro ayaa lagu amray inuu dib ugu soo laabto dalka Portugal bishii Janaayo ee sanadkii 1822. arrintaas ee Amir Pedro uu ka diiday. markii ahayd September 1822 Pedro wuxuu ogaaday inuu dalkiisa Portugal ay rabaan inay ka tuuraan awoodiisa dalka Brazil. kadib dadkii reer Brazil ayuu ugu dhaartay inuu ku guuleysan doono inuu Brazil ka xoreeyo boqortooyadii uu asal ahaan kasoo jeeday ee Portugal. Brazil ayaa waxay ku dhawaaqay inay xor ka ahaatay Portugiiskii isla bishii September 7 1822. bil kadib Prince Pedro ayaa ku dhawaaqay markii ugu horreysay inuu yahay boqorka dalka Brazil wuxuuna ka aasaasay boqortooyadii Brazil la oranayay. boqor Pedro ayaa xilligaasi ku dhawaaqay madaxbannaanida dalkaasi Brazil sanadku markuu ahaa 1822 bishii 9 balse isla sanadka 1822 isku dhacyo u dhexeeya maleeshiyooyinka iyo Portugal ayaa bilaabmay ilaa iyo Janaayo sanadkii 1824 marka ciidamada badda ee reer Portugiis iyo garbihii ciidamada ay isku dhiibeen oo iska taageen Brazil. dowladdii boqortooyada ee Brazil waxay u adeegsatay adoonsiga iyo mutadaaficinta ciidamada iyo badda. ciidamo daacad u ahaa dowladdii Brazil ayaa waxay qabsadeen Rio de Janeiro iyo qaybta dhexe ee Brazil. hanweynidii loo qabay madaxbannaanidii Brazil waxay joojisay ciidankii Brazil. maraakiibtii reer Brazil ayaa awooday inay qabsadaan 11 maraakiib dagaal ah oo hore u lahaan jirtay boqortooyadii Portugiiska. balse dhibaatada ugu weyn ee haysatay ciidanka waxay ahayd shaqaale xooggan oo qayb weyni ay ka mid ahaayeen shaqaalihii badda ayaa ka koobnaa Portugiis kuwaasoo ahaa mutadawacnimo. inkastoo ay ku dhawaaqeen inay daacad u yihiin una adeegsanayaan dalka Brazil haddana lama aamini karin. xukuumadda Brazil ayaa si qarsoodi ah u qortay 500 oo badmaaxayaal ah iyo 50 sarkaal oo ka kala yimid dalka Ingiriiska gaar ahaan Liverpool iyo London
kuwaasoo intooda badan ka qayb qaateen dagaalkii Faransiiska ee Napoleonka. Bishii Abriil 1823 6 markab oo reer Brazil ah ayaa u socdaalay Bahia. Burcadbadeedkii waxay dhigeen xayiraad ayna ka hor istaagtay sahayda inay gaarto Bahia. Boortaqiiskii ayaa u daadgureeyay Bahia wuxuuna u tegay Portugal isagoo ku jira kolonyo 90 markab ah. Bishii Noofembar sanadkii 1823 waqooyiga Brazil waxaa gacanta ku hayay ciidamada Brazil. Boortaqiis oo aad u niyad jabsan ayaa wuxuu ka tegay Montevideo oo ah magaalo ku taalla dalka Uruguay iyo gobolkii Cacedobetalin oo Brazil ka tirsanayd waqtigaas. 1824 ayay dhammaan gumaystihii reer Boortaqiis ka tageen dalka Brazil. Dagaalkii madax-bannaanida ee reer Brazil oo horeyba u bilaabmay ayaa wuxuu ku fiday waqooyi bari iyo gobolka Kispalatino. Portugal wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday dalka maanta la dhaho Brazil 29 bishii Agost 1825. Kadib xornimadii markay ku guuleysatay dalka Brazil, Batrihii labaad ee dalkaasi wuxuu la wareegay dalkii Brazil, wuxuuna bilaabay dardar xiiso leh inuu xoreeyo dalalka kale ee ku yaala Koonfurta Ameerika, gaar ahaan dalka Uruguay. Sanadkii 1852 Brazil ayaa ka caawisay Argentina inay xukunka ka afgembiyaan keligii taliyihii Juan Manuel de Rosas. Paraguay ayaa kusoo duushay Brazil iyadoo ujeedadeedu ahayd in la xakameeyo saameynta siyaasadeed iyo militariga dalka Brazil. Dadka reer Argentina iyo Uruguay ayaa ku biiray Brazil waxayna ka adkaadeen dowladdii reer Paraguay oo ay haddana ku guuleysteen inay ka afgembiyaan hogaamiyihii xilligaasi ka talinayay dalka Paraguay ee Francisco Solano Lopez. Sanad walba markay tahay bisha 9aad 7deeda dalka Brazil waxay u dabaaldegtaa xornimadeedii ay ka heshay gumaystihii Boortaqiiska. intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynayaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin daawashadiina iyo saad ugu xidhan tihiin channelkaygan YouTube-ka ah.